رئيس وزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو ayaa qamaarkiisa lagu sheegay inuu dib u soo celinayo dagaalkii markii Gaza isagoo ka faa'iideysanaya taageerada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dabaysha la socota iyo iyadoo ay hoos u dhacayso cadaadiskii gudaha looga hayay oo markii horeba xukuumaddiisa ay meel ka martalahayd nin la fagura arrimaha militariga oo yiraahdo Amos Harel ayaa waxa uu ku doodayaa in siyaasadda Netanyahu ee xukuumaddiisa ay tahay sida uu carab ku adkeynayo in ciidankiisa aynan awood u lahayn ay dagaal kula galaan ururka Hamas ama dagaal ay ku qaadaan halka shacabkuna ay dalbanayaan in la soo daayo maxaabiista ka hor inta aanan tilaabadaas la qaadin waxay nooga digeen Netanyahu in uu ku qamaaro nolosha maxaabiista iyo nolosha askarta iyo mustaqbalka dowladda Israa'iil laftirkeeda waa gartay muxuu tusaale u soo qaatay qoraago Maxamed Harel ayaa waxa uu sheegayaa in waxa ugu muhiimsan ee tusaalaha uu soo qaatay inay tahay nidaamka uu Netanyahu u dhaqmayo markay wada xaajoodka timaado iyo maxaabiis kala bedelshada waxa uu leeyahay xukuumadda Israa'iil ayaa waxay ku andacoonaysaa in Hamas ay diiday hindisihii oo Mareykanku ku ballaarinayay heshiiska xabad joojinta xaqiiqadan waxay tahay sida Harel uu qabo waxa xadgudubka ku sameynaya heshiiska inay tahay Israa'iil ma aha oo kaliya in ay ciidamadii kala bixi weyday marinkii muhiimka ah ee Philadelphia ama Salaxuddin sidoo kale waxa ay diidan tahay in ay wajiga labaad ee heshiiska ay Israa'iil u gudubto taasoo ay ka mid tahay in la soo daayo maxaabiis Falastiiniyiin saacado kadib markii xafiiska Netanyahu ay ku dhawaaqeen in ururka Hamas uu diidan yahay heshiis Israa'iil ayaa go'aansatay in ay joojiso gargaarkii bini'aadanimada ee marinka Gaza la gelin lahaa talaabadan ayaa sida Hasel uu sheegayo waxa ay abuureysaa daandaansi iyo cambaareyn ka yimaada caalamka gaar ahaan bishan Ramadaanka oo hadda lagu jiro iyo Israa'iil oo la filayo in lagu eedeeyo in ay baahi u adeegsanayso dadka rayidka marayka Gaza ku nool ee Soomaan arintaasna waxa moodaa in caraw weyn ay ka dhalanayso caalamka oo dhan caradii dagaalka ay Israa'iil ku qaaday marayka Gaza ayay ku beeri doontaa midan waa gartay dhexdhexaadiyaasha carabta muxuu qoraagu ka sheegay mowqifkooda iyo aragtidooda ku aadan hanjabaadda Netanyahu ka soo yeeraysa ninkan arrimaha militariga la fagura ayaa wuxuu aaminsan yahay dhexdhexaadiyaasha carabta sida Masar iyo Qatar in ay dulqaadkooda u dhamaanayo maadaama Israa'iil cagajiid fara badan iyo lugooyo fara badan iyo iska daboolay badan ay wado Masar ayaa aad uga careysan xadgudubyada ay ku sameynayso ballanqaadkii ay gashay iyo heshiiskii xabad joojinta gaar ahaan marinka Philadelphia oo ay ku xiran tahay muhiimad aad u weyn oo ku xiriirsan danaha Masar waxaa sidoo kale muuqata in Qatar ay iyadana bilaabayso in ay Kenya jabto hawshan wada xaajoodka dhinaca kale ninkan militariga arrimihiisa la fagura ayaa tilmaamaya in maamulka Mareykanka fursadii uu u abuuray Netanyahu xukuumaddiisa iyo hindisiyaashii uu soo jeediyey ergeygiisa gaarka ah Stephen Witkoff ee lagu ballaarinaya xabad joojinta lagana dhigay ilaa April 19 oo lagu darayo in la soo daayo dhammaan maxaabiista Israa'iiliyiinta laba heer loo soo daayo kala bedelashadana ay noqoto mid maxaabiista Falastiiniyiinta ayagana la sii daayo iyadoo aan wax shuruud lagu xirayn ayaa hadda waxa muuqata in waxaas oo dhan ay khatar qarka u saaran yihiin Maxamed qoraagu arrin muhiim uu ka hadlay oo ah dagaalkan hadduu dib u bilowdo ciidanka qasaare ballaaran inuu soo gaari doono muxuu ula jeedaa ninkan lafagura arrimaha militariga ayaa wuxuu ku doodayaa isku dayga ah in lagu riixo Hamas in ay diiday hindisihii sida uu ku andacoonayo Netanyahu ayaa waxay tahay faduul kale oo uu rabo inuu howlgalka militariga ku bilaabo khabiirkan ayaa waxa uu tilmaamayaa haddii dagaalku uu ku noqdo waxa ay qiimo badan ugu fariisanaysaa
maxaabiista israa'iiliyiinta oo naftooda ku waayaya iyo askarta israa'iil oo naftooda ku waayeysa. qaar fara badan ayaa weli ku jira tanada hoostiisa dadka maxaabiista, halka qaar kalena oo militariga ka tirsanna laga yaabo in dagaalka lagu dilo. waxaa sidoo kale uu dareen kusoo jeediyey ninkan khabiirka ah xaqiiqada ah in ciidanka militariga Israa'iil ay khasaaro badan soo gaartay haddii dagaal ku noqdaana in khasaarahaas mid ka weyn uu gaarayo. Xamaas ayaa waxaa la aaminsan yahay inay xabad joojinta u isticmaashay inay dardargeliso nidaamkeeda difaaca iyo qalabaynta ciidankeeda. aragtidan imbriyaariyadda Trump iyo Netanyahu ay iska daba jiibinayaan lagu kicinayo la rabo in lagu barakeeyo dadka Falastiiniyiinta iyo saraakiisha kale ee Israa'iil ayaa waxaad moodaa in arrintan oo dhan ay tahay wax wareer keenaya. ciidankana Israa'iil aad ayay u yar yihiin, tabar badan iyo xoog badanna ma hayaan, culays badan oo dagaalo badanna ma qaadi karaan iyo wajiyo fara badan. haddii ay ka baaran degi lahayn inay dagaal ku noqdaan, ciddii isku dayeysa in ay deegaano kale dagaal ku darto ama dagaalka inay ballaariso waa inay ku xisaabtantaa ciidanka Israa'iil inay awoodiisa ay xadidan tahay. kadib markii dhimasho, dhaawac iyo cudurro xagga dhimirka ay kasoo gaareen dagaalka 16 bilood ay lugta ku lahaayeen marinka Gaza, waxaa sidoo kale ciidanka ku yar askarta 2 guuto kaliya ayaa dagaalami kara. inta kale waxaad moodaa in ay khasaarooyin iyo khataro noocyo kala duwan ah in ay la soo gudbato, gaar ahaan askartii kaydka ahayd oo xubnahooda intooda badan la sheegayo in shaqo aad u badan ay ku dhacday, waqti badanna shaqeeyeen, dhaawac iyo dhimashadana in ayaga u badnaayeen oo aan la rabin in laga hadlo. waa garta markuu leeyahay waxaa lagu qamaarayaa Netanyahu ku qamaarayaa ciidanka iyo maxaabiista lagu haysta marinka Gaza ee Israa'iiliyiinta, muxuu ku sifaynayaa? xisaabaadka militariga Netanyahu waxaa u muuqdaa in arrimaha siyaasadeed ee wadanka gudihiisa inay ku riixayaan inuu dagaalka dardargeliyo si uu xukuumaddiisa u sii jirto. waliba xisbiyadan xag jirka ah asaga maalaya. ninkan khabiirka ayaa waxa uu leeyahay haddii uu gudbiyo miisaaniyadda dowladda oo hadda qas ka taagan yahay lana soo afjaro xilliga fasaxa ee baarlamaanka, waxaa laga yaabaa ayadoon xukuumaddiisa aynan dumin, gaar ahaan cadaadiska ayaa wuxuu kusii kordhayaa kooxaha diinta ay madax martay ee zahyuuniyadda ah oo isku dayaya in ay rabaan ayaga laftigooda in dagaalka lagu noqdo, inay ciidanka ku darsadaan iyo inay dagaalka galaanna ma rabaan. sida Ohare la qorayo, marka laga gudbo qaar ka mid ah qoysaska caruurtooda ay haysato ururka Xamaas oo maxaabiista yihiin, in Netanyahu xukuumaddiisa inay diyaar u tahay in ay siyaasad khatara qaadato oo dagaalka ku noqoto. xisbiga Likud-na iyo xulafadiisana ay siyaasadda ay soo bandhigayaan ay tahay ay ku qeexayaan haddii waxaa la joogaa xilli muhiim u ah taariikhda Israa'iil. dagaalkan Xamaas iyana naga adkaanin